waxaa maanta kulan isugu yimid qaar ka mid ah dhalinyarada degan magaalada Darmstadt kaas oo ay diyaar garow buuxa ay ugu jiraan mudaharaad weyn ee ka dhici doona magaalada Darmstadt ee dalka Jarmalka. mudaharaadkan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka Somali Community Service isla mar ahaantaana dhici doona 25-ka bisha 9aad 2018 ayaa waxa ay kaga caban doonaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin Soomaalinimadooda oo ay dawladda Jarmalka aqoonsaneen, shaqooyinka qaar oo aan la ogoleen, sinaan la'aan marka qaxootiga kale loo fiirsho. si kastaba ha ahaatee dhalinyaradan ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan dalka Jarmalka inay si wada jir ah isaga kaashadaan mudaharaadkan ka dhici doona magaalada Darmstadt ee dalka Jarmalka. السلام عليكم Soomaalida dhamaan waa idin salaamo oo ku nool dalka Jarmalka qaas ahaan gobolka Heesan waxaan kooda codsanaa Soomaalida ku magaalada Darmstadt dhamaantiin isku soo baxdaan 25 September 10 subaxnimo aad oo 4 saacada u taqaanay ama 10 subaxnimo u taqaanay fadlan waxay ku soo anaga waxay ku soo saadin waxay ku soo caruurta waxay ku soo mustaqbalkiina banaanbaxna wada anfacay waxa u hadleena xaqeena waxa u hadleena waxa wadankan aan ku leenahay xaqeena soo fadlan waxaan idin ku codsanaynaa meel walba aad joogtaan hadad ka seexatid dantaada ka seexato ama hasantii ka inoo soo diyaariyay ama inoo soo garab dadaal badan ku bixiyay ururka dhalinyarada Somali Community Service FAO oo gudoomiyaha ama hogaamiyaha u yahay Kamal anigu ku hadlayo magaca dhalinyarada magaalada Darmstadt waxaan ka codsanayaa dhamaan shacabweynaha Soomaalida degan gobolka Heesan dhamaan Jarmalka oo dhan inay nagala soo qayb galaan mudaharaad ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen ururka Somali Service Community oo ka dhici doona magaalada Darmstadt 25-ka bisha 9aad 2018 10 subaxnimo ama 4 saac subaxnimo Soomaalida hadda say u taqaano oo maasintii dhamaatay. الله وبركاته وحسلام يا أمد الدمان أمد الصوماليات يكون كنا وده كان جرمالك سيدا أد أقصون تهامبا أمدتك أجوبنا أي أوجي هنا وحد محسن هاي فنبحي أجوينا كدع وده كان جرمالك إن أكو قبنا مجال الدمشق عشان إلى لا تنك بيش السجالات وده سنة كان نقدر متى وحكي لنا بسبوع عن رجينا إن شاء الله إن الصوماليات كنا قبل كهسن دمان تنقص وده قيب كل دونا. السلام عليكم دمان أمد المسلمين كملوا الجودة والسلام يا ورنتي سلام كدي أنت مرتدى شرفت لي وما أنت كسوق بشيء دمان وما هسنتين أنت كسوق بقلدنت وحنا قد سنة يا أمد الصومالية وحلا صوت بحاي وعدنا هنا وجود الصومالية إذا الإكواد الحيان ما Soomaali hadii gacmaha isoo wada qabsan walaalayaal dan iyo horumar aan gaarayno ma jirto gacmaha inaan isoo wada qabsano calooshiina isku furno maraan baxaan si loo wada dhan yahay in aan soo wada baxno walaalayaal waan wadanteena waa 25-ka bisha oo tan aan ku jirno bisha 9aad intaasaan ugu baxay wabillahi tawfiiq ma sha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول هذا لايا مجا شعبك الصومالي وين صومالي ذا كله جرمالك أردن لما صومالي ذا كله الهيسن وحان إنك سود وين يا مظاهرات كوين إكدر الدونو شل إلى واتنك إيش السجالات مقالة دارمشتات. صومالي ملك استكتة وين السلام يا بنامبحة وحين دارمشتات. شاء الله تنكا شاء الله صباح بنامبحة واحد وضعنا بعيوه. guntii iyo gabagabadii waxaa halkaa khudbad ka jeediyay gudoomiyaha ururka dhalinyarada Somali Community Service Kamal Jamac Musa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u sheegayaa dhamaan Soomaalida ku nool Heesan gobolka Heesan Kassel Fulda Gießen Frankfurt Marlborough Bergstraße Bensheim Drei Eich Hanau Dibro كل واحد كعصنينا إنتان اسكو بحنا 25 بيش 9aad 2018 أنا مدارات وين لو قبنا مدارات كاسيتو أو عبشة Soomaalida dhan meeshaasayta ka cabanayaan oo xuquuqdooda iyo sharaftooda u dagaaltami doonaan maxaa kamid ah waxyaabooyinka aad ka cabanaysiin marka waxaan ka cabanayn waxa kamid ah sida ayniga angawa baasaboorkana lagu qoray dadka 8 sano joogan oo la siin karin baasaboorka oo dhalashada oo wadankaanaytan joogna iyo ilmaheena inta ku dhasheen oo la siin karin waraaqada dhalashada yaa idin kala qayb qaadanaya marka mudaharaadka waxaan kala qayb qaadanaya
aan rabnaa intay si wanaagsan oo wada qayb qaataan Soomaalida ma jiraan ururo qaas ah oo idinkala qayb qaadan doona mudaaharaadkan ururo qaasatan waa jiraan nagala qayb qaadan doona dhalinyarada oo ku nool Kassel magaalada Kassel ururka ka jira oo dhalinyarada ah Wiesbaden iyo Frankfurt iyo ururada inta ka jira sida Halima Active for Africa iyo Somali Culture oo gudoomiyaha u ahay maamada Faadumo marka waxaan leenahay aniga soo qayb galaan dhamaan ugu dambeyn adigoo fursadan Xawataaki News TV ay ku siisay maxaad ugu baaqaysaa dadweynaha Jarmalka guud ahaan degan waxaan ugu baaqi doonaa waxa codkeena dhan waxay meel dheer ku tagi karaan waa anakoo isku wala imaan marka isku imaashadaas ay taa muhiim ah maalintaas ay 25 bisha 9aad fadlan haddaad degan tahay gobolka Heesan iyo agagaaraheedaba naga soo qayb gala mudaaharaad weyn waaye oo future-keenaba ku xiran waaye mudaaharaadka awid ugu weyn ka dhici doono noqon doona dhalinyaradana waa aragteen diyaaran yihiin maalintaasayta gabdhaha diyaaran yihiin soo dhaweynintii soo dhaweynay dadka Baanhofka ka soo dagaaya maxaa way dhalinyarada meesha lagu diyaariyay Strasbourg number 3 adaa soo raacdid maxaa ugu dagaysaa meesha Schloss-kaasayta meesha laga mudaaharaadku ka bilaabanayo waaye qofkii kaleetana oo uu waayana lambar 3gana maxaa way lambar 5 soo raaci kartaa Louisen Plus-ka ugu dagaysaa markaas ka bacdina maxaa dada ku soo doonay dhalinyarada hadda meeshan isku imaaday markaas ka bacdi meesha mudaaharaad ka bilaabanayo Schloss-ka waaye meeshaas ay tahay kan geeni doon insha Allah waxaan jeclahay intay Soomaalida dhan ka soo qayb galaan diyaaraan ahanay anaka diyaaraan ahanay Somali Community Service waa dhalinyaro isku imaaday oo ka bedelaan siyaasadda hore iyo siyaasadda hadda socota wax badan eena diyaar u yihiin intay Soomaalida dhan caawiyaan marka fadlan waxaan ileenahay maalintaasayta waa muhiim fadlan nagala soo qayb gala bisha soo qayb galkiinu